madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha golaha guurtida xildhibaanada taliyayaasha ciidamada wasiirada salaadiinta iyo cuqaasha iyo dhammaan martidan halkan fadhida waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib aniga oo ku hadlaya magaca golaha guurtida magaca guddoomiyaha iyo xildhibaanadaba waxaan halkan mar labaad aan ku soo dhoweynayaa wafdiga ka socda ama ka yimid gobolada Ceerigaabo gobolka Baran degmada Dhahar ee ay hogaaminayaan salaadiinta boqorada iyo islaamka. waxaad timaadeen dhulkiinnii ma idinaan iman dhul ajnabi ah sida laydin soo dhoweeyey iyo sida laydin ixtiraamay waxa weeyaan Somalilandnimada. dalku waa dalkiinnii, xukuumaddu waa xukuumaddiinnii, madaxweynuhuna waa madaxweynihiinnii. sidaa darteed waxaad timaadeen dalkiinnii baad timaadeen. taas waa tan labaad. madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa sida fiican ee ikraamka leh ee sharafta leh ee uu soo dhoweeyey ee uu qaabilay ee uu muddada meesha ku joogeen. waana taasuna waxa weeyaan waa arrin laydinku leeyahay. idinkuna waxaad u timaadeen inaad ka hadashaan ama dalkiina u timaadaan dowladda sidii aad isu fahmi lahaydeen ama aad wax isla meel dhigi lahaydeen. dacwad ma aha iyo waxbaa maqan iyo waxba baalkaysan, laakiin waa isfaham. muddada dheer oo aad kala raagteen inaad isku fahamtaan ama aad iska wargashaan bal wixii sidii dalka aad ka timaadeen. maamulku waa ku gebagebo, waa ku yaryahay. sidii maamulka loo gaarsiin lahaa iyo wixii idinku aad ka qaybgeli lahaydeen oo aad maamulkaas aad uga qaybgeli lahaydeen. si fiican baa hadalkiinu wada dhacay, si fiican baa laysula afkartay, si fiican baa meel laysula dhigay. waxaan ilaahay ka rajaynayaa in qolo kastiiba hadday tahay ergada iyo hadday tahay xukuumadda in qolo kastiiba ay fuliso ama ay ballan qaado wixii ay ballan qaadeen. sidaas darteed aniga oo mar labaad waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland iyo xukuumadda Somaliland oo ay ka mid yihiin wasiiradu sida ikraamka leh iyo sharafta leh ee u soo dhoweeyeen wafdiga. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxay farxad inoo tahay inaan qaado sharaftan ka soo qayb galno. waxa weeye hadalkii labada dhinacba waa dhegaysanay. madaxweynahana waxaan leenahay reerka beesha wax badan baa ka maqan. horena uma iman, waa markii ugu horeysay. markay yimaadeen culays bay ku yimaadeen. culayskooda ha loo tixgeliyo, wixii loo ballan qaaday ha loo dhammaystiro. marka aad iyo aad waxaan mukhaalafada wanaagsan iyo sida sharafta leh ee magaca leh oo idinkoo isku dhano salaadiintiinii wata iyo odayaashiinii iyo waxkaradkiinii sida wanaagsan baad uga soo qayb gasheen. annagana magac bay noo tahay. annaguna waxaanu markhaati ka noqonaynaa wixii lagu heshiiyey inay sidoodii u fulaan. idinkana waxa weeye de waxa waxayna taraya waa mashaariic wax dadka u dhaxeeya sida aad sheegteen oo tiraaheen wax dadku wada manfacadsanayo inaad weydiisateen baanu rajaynaynaa. aad iyo aad baan idiin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.